هاي قيارتا soo dhawaada muuqaalkani maanta wuxuu ku bilaabanayaa Melissa waxay sameynaysaa cake xafladan waxay ku saabsaneeday Melissa iyo Carver ay waxa ka dhaxeeyo xiriir 5 sano ah waxaan u sameynaysaa xiriirka 5 sano awgeed cake iyo xaflad Carver wuxuu waday hadiyadaas uu geeday Franti Melissa markii hadiyadii kala furto waxa uu soo baxayo jab dhagax ah laakiin waxa meesha ku xanaaqayso Melissa waxay dhigi doontaa maxaasas igu gashay waxaan u maleynayaa in ay soo bandhiganayso guur laakiin ma soo bandhigan guur halkaasna waxa ku burburayo jaceylka Melissa iyo Carver jaceylka marqarkood ma galo kaftan waxay riska bacdi waxa arkeena Melissa iyo saaxiibteeda Leslie waxay og tahay saaxiibteeda Melissa in qalbiga laga jibo waa laba qafood oo saaxiibo ah mana kala haraan labadan qafood waxayna saaxiibo yihiin ilaa college-kooda ilaa hadda Melissa waxay aasanaysaa markeeda ugu horeysay gymka waxa joogay macalinkan oo gymka joogay ayaa Melissa isbarayo macalinkan waxa si fiican u soo jiidatay Melissa ayuu ka helayaa macalinka Melissa wuxuu sheegayaa wax kasta ay u baahan tahay inuu ka caawinayo xitaa hadii u baahan tahay diet-ka inuu ka saxo Melissa waxay ku leedahay waa maasan tahay waxaan arkaynaa maalinta ku xigtay Melissa waxay joogtaa shaqadeeda waxa shaqada ku welinayay booska shaqadan oo ah Adam iyo Melissa waxay ka shaqeeyaan shirkadan oo ah shirkad qabato sawirada galeriga ah oo la sugto darbiyada kuwaas oo ah kuwa xasuus qor ah iyo kuwa taariikh ah Adam waa milkiilaha shirkadan ama company-gan Adam waa nin taajir ah haysto lacag aad u fara badan Melissa maadaama oo saaxiibkeeda hore qalbiga ka soo jibiyay waxay rabtaa qof kale oo ku wareegto ee la sameeyso xiriir waxa u maleysaa ninkan Adam ah inay aad u xiiseynayso Melissa maalinta ku xigtay waxay aasanaysaa gymka waxayna la kulmaysaa macalinkeeda gymka Melissa wuxuu ka qaadaa sawiro wuxuuna leeyahay sawiradan waxay ku naqanayaan before iyo after marka hadhowti isbedeshay ay sawiradan waxay ku naqanayaan xasuus waxaanu ku ogaanaynaa isbedelkaaga inaa isbedeshay iyo in kale Melissa maalinteeda u horeysay waxay bilowday trainingeeda laakiin waxa caawinayay oo ag joogay macalinka gymka asiga wuxuu u muuqday nin kaftan badan oo naxariis badan wuxuuna mar walba caawinayay Melissa macalinka gymka Melissa wuxuu u sameynayaa application wuxuuna siinayaa saacad oo kala soconayo dhaqaaqa wadnaheeda wuxuu iskugu xirayaa application-ka telefonkiisa iyo application-kaas wuxuuna la soconayaa mar walba dhaqaaqeeda wuxuuna u sheegayaa caafimaadkeeda inuu la socdo inuu u baahan yahay Melissa way ka ogolaanaysaa waxaas oo dhan waxayna ku leedahay way fiican tahay in caafimaadkeeda la socotay Melissa saaxiibadeeda Leslie ayaa waxay ka soo bixisay idina gymka waxayna kulmayaan Leslie iyo Melissa waxay istusi doonaa xariif almeeteenayo laakiin waqtigaas waxa maqlaya macalinka gymka wuxuuna ogaanayaa inay gabdhahan xiiseenayaan ragga macalinka gymka habeenkii wuxuu imaanaa xaafadiisa wuxuu soo baxsanayaa telefonkiisa wuxuuna telefonka kala socday xaaladda Melissa wuxuuna la socday dhaqaaqa wadnaha Melissa wuxuu ogaanayaa Melissa inay seexatay subaxdii waxay ku soo noqonaysaa Melissa gymka waxaana imaanayo Trey oo ah macalinka gymka Melissa wuxuu soo wadi doonaa buur la fuulayo calashaan buur for example ah wuxuuna ku leeyahay waxa fuulaysaa buurtan laakiin isla markii waxa xariiq qaadanayso oo isku xirayso Melissa waxayna fuulaysaa buurtii Melissa waxay bilaabaysaa inay fuusho buurtii waxaana caawinayay Trey oo ah macalinka gymka isla markii waxa imaanayso saaxiibteeda Leslie waxayna ku dhigi doontaa gabarta maxaa u saartay meesha waxayna ku qeyri doontaa macalinka gymka Melissa waxay gaaraysaa meesha ugu dambeysay ee buurta isla markiina way soo deganaysaa Melissa waxa isla markii israaci doonaan saaxiibadeeda waxayna ku dhigi doontaa hadii wax ku gaarin waa alxamdulillah aan soo dhicin maalintii ku xigtay Melissa waxay imaanaysaa shaqadeeda waxayna kulmayaan Adam wuxuu ka codsan doonaa Melissa in cabad isku soo raacaan casho waxa ka aqbalayso Melissa waxayna isku soo raacayaan cashadii markay imaadaan wax dhaxmari doonto sheeko markay sheekadooda dhameystaan Adam ayaa wuxuu soo wadi doono Melissa xaafadeeda Adam wuxuu macsalaameynaya Melissa waxaan arkaynaa gaari meesha yaalo waxaan gaarigaas ku jiray oo ka daawanaya meesha Trey oo ah macalinka gymka maalintii ku xigtay waxay imaanaysaa gymka macalinka gymka ayaa wuxuu weydiin doono su'aalahaas oo ah goortii aroosayso oo arooskeeda dhici rabo wuxuuna ogaay habeenkii inay ka wada hadlaayeen Adam aroos laakiin Melissa ay ugu jawaabaynin hadaladiisa Melissa si shaqadeeda ah waxay dambe qabanaysay shaqadeeda waxaan isla markii u imaanaya Adam ayaa wuxuu ku dhahay shaqadaada dhamaato waxaan ku kaxeynayaa xaafadaada ee ii sheeg Adam wuxuu u soo kaxeynayaa xaafadeeda Melissa wuxuu u karinayaa Melissa cunto markuu cuntada u kariyo Melissa waxay bilaabayaan sheekadaas waxa isla markii la socday xaaladaas Trey oo ah macalinka gymka wuxuu arkayaa garaaca wadnaha Melissa oo aad u batay wuxuuna ogaanayaa xilligan inay tahay xilli dambe xaaladani wuxuu ku xumaanaysaa Trey oo ah macalinka gymka wuxuu ogaanayaa wax kasta oo ka socdo guriga wuxuuna la socday dhaqaaqa Melissa wuu xanaaqayaa wuxuuna ka maseerayaa Adam wajigiisa waxa ka muuqatay caro aad u fara badan subaxdii alasay wuu iscili weynayaa Trey oo ah macalinka gymka wuxuuna u tagi doonaa Melissa gurigeeda asigoo ku dhigi doono waxa ka soo daaday gymka sidaas ay kugu imaadeen isla markii guriga waxa ka soo bixi doono Adam Melissa waxay isbari doontaa Adam iyo Trey waxayna ku dhigi doontaa waa macalinkeyga gymka sidoo kale waxa meesha lagu xumeyn doonaa Trey oo ah macalinka gymka waxayna ku dhigi doontaa kan waa saaxiibkeyga Melissa iyo Trey waxay imaanayaan gymka Melissa waxay waday trainingeeda Trey ayaa wuxuu ku wadi war wuxuuna weydiinayay su'aalo maala yacni ah wuxuuna weydiinayay wuxuu yahay Adam laakiin iyada uguma jawaabayso Trey oo baxaya wuxuuna aasanaya xafiiskiisa isla markii waxa laga dareemayaa carada wuxuuna feerka jarayaa kursiga xafiiskiisa Trey wuxuu ku soo noqonayaa
imaanaya mar kale Melissa waxay iska badinaysaa orodka waxayna ka dhacaysaa geedka mashiinka lagu ordo. Melissa way suuxaysaa waxaana caawinaya Trey oo ah macalinka jiimka. Trey indhihiisa waxaa laga dareemaya jacayl oo uu qabo Melissa, laakiin Melissa wax yar oo jacayl ah lagama dareemeyn. Maalintii ku xigtay waxaa sheekaysanaya labada gabdhood oo ahay saaxiibaha, waa Melissa iyo Lisa. Melissa iyo Lisa waxay ka sheekaysanayeen Adam. Lisa waxay leedahay Melissa waxa ku soo wacay Adam, wuxuuna ku soo wacay marar aad u fara badan. Waxayna ku dhihi doontaa Adam waa laga dareemaya jacaylka kuu qabo Melissa. Waxayna u sheegaysaa inay ku dadaasho sidii ku heli lahayd Adam. Waxayna ku leedahay qofku jecel ayaa ku wanaagsan. Maalintii ku xigtay Melissa waxay imaanaysaa jiimka. Waxayna u tagaysaa Trey oo ah macalinka jiimka. Waxayna ugu tagaysaa xafiiskiisa. Melissa waxay u dhiibaysaa Trey taleefankeeda. Waxayna ku dhihi doontaa iyahay taleefanka. Trey isla markii taleefanka asiga uu xareerabo Melissa wuxuu arki doonaa Adam oo soo diray fariin. Wuxuuna ku dhihi doonaa waxa ku mashquulsana maanta shaqada. Laakiin Adam ayaa wuxuu ku dhahayo waxaan rabaa inaan kula kulmo cawada. Laakiin taleefanka waxaa hayay Trey oo ah macalinka jiimka. Wuxuuna u qori doonaa ma kulmi doono cawada. Wuxuuna dhihi doonaa waxaan kulmeynaa berito subaxii alasahay waxaan ku kulmeynaa jiimka. Trey oo ah macalinka jiimka wuxuu dileedi doonaa qoraalada uu qoray Adam. Kabacdina wuxuu ugu sii diri doonaa inuu saaro block. Subaxdii ku xigtay waxaa imaan doono Adam jiimka. Waxaana ku balimi jiimka Trey iyo Adam waxay soo wada geli doonaan jiimka. Adam wuxuu weydiin doonaa Melissa ma joogto miyaa jiimka, laakiin Trey ayaa wuxuu ku dhihi doono Melissa ma imaanin jiimka. Isla markii wuxuu ku dhihi doonaa waa almeetay kartaa inta imaanayso Melissa. Waxaa laga yaabaa inay ka timaado gadaal. Isla markii Trey ayaa wuxuu gashanayo birar badan birta lagu dhaho Justiga, laakiin waxaa arkaya markaas Adam. Wuxuu ku dhihi doonaa markuu dhaho Adam dheh. Adam ayaa geli doono wuxuuna isku dayi doonaa inuu dhaho. Adam intuu sameynaya exercise-ka uu ka faa'iideysanaya wuxuuna aasanaya taleefankiisa. Wuxuu iska dhigayaa qof bedelayo heesta ka shidan taleefanka. Trey oo ah macalinka jiimka wuxuu sameynaya doqonnimo wuxuuna block saaraya Melissa. Adamna ma ogeen xaaladaas wuxuuna la dagaalamaya Adam culayska ka tan badan oo u dhiibay Trey. Adam waxa ka dhamaatay tabartii wuxuuna weydiisanaya inuu caabiyo Trey ay ka qabanayo birta Adam wuu xanaaqaya wuxuu ku dhihi doonaa Trey waxaa tahay cadow waa idil rabtay waxaana ugu fiirsatay birta. Trey oo ah macalinka jiimka Melissa ay wuxuu siinaa exercise laakiin wuxuu bilaabayaa inuu taabto. Melissa ayaa ka diidi doonta waxaas waxayna dhihi doontaa iga dhaaf waxaas. Maalintii ku xigtay Melissa oo xanaaqsan ay waxay imaan doonto jiimka. Waxayna ku dhihi doontaa Trey maraba ani jiimka, laakiin Trey ayaa wuxuu ku qarci doono inuu miisaankeeda wax ka dhimay iyo in kale inuu fiirsho. Wuxuuna saari doonaa miisaan. Melissa markay fuusho miisaanka waxay arki doontaa inay ku darsoontay kiilooyin aad u fara badan. Waxayna dhihi doontaa jiimkan wax ma kama dheefin. Waxayna ku dhihi doontaa jiimka maanta ay ugu dambayso waan iskaga tegaya. Trey ayaa ka daba carari doono oo ah macalinka jiimka. Wuxuuna isku dayi doonaa inuu celiyo Melissa ayaa waxay ku dhihi doonto ima hor istaagi karti aniga. Go'aankaygana waa mid ka qaatay. Jiimka ayay ka tegi doontaa isla markii Melissa oo habeen lugeynayso wadada waxay arki doontaa shirkadii ka shaqeynaysay oo dad badan dhooban yihiin. Waxayna arki doontaa shirkadii oo jajaban. Dadkana ayaa waxay ka duwanayeen fiidiyoyo. Waxay gudaha geli doontaa Melissa shirkadda. Waxayna arki doontaa sawirada ay sameey jireen dhammaantood wixii dhammaan oo la isku qasay. Waxayna arki doontaa shirkadii qalabka yaalay dhammaantiis oo la jijibiyay. Maalintii ku xigtay Carter oo ah mid kala shaqeeyo Melissa shirkadda ayaa waxay ku dhihi doontaa maxaa ku dhacay Adam. Wuxuuna dhihi doonaa Adam ma arkin aniga laftirkayga uu iga maqan yahay. Waxayna ku dhihi doontaa aniga wuxuu ii saaray block. Melissa waxay ku dhihi doontaa hadday jiraan wax qaldan ma wacnaa booliiska, laakiin Carter ayaa iskaga tegaya meesha ugumana jawaabayo. Melissa waxay imaanaysaa xaafadda waxayna u sheegaysaa saaxiibadeeda Leslie in oo block saaray Adam. Waxayna ku dhihi doontaa waxa ay saaray block Adam. Leslie ayaa waxay tahday computer science waxayna baaraysaa isla markii fariimaheeda iyo waxa uu soo diray. Waxayna ogaanaysaa Adam inuu fariimo far badan oo uu soo diray iyada taleefankeedan oo ka saarnay blogga. Isla markii Lisa waxay soo saari doontaa fariimo uu soo diray Melissa Adam. Waxayna aheeday my Melissa oo ah Melissa deediyay. Waxay fariimahaas oo ahay kuwa aad u far badan oo ku soo noqday mobilkeeda. Waa hagaag waxay ogaan doontaa Melissa inuu taleefankeeda blog ka saaray macalinka jiimka Adam. Waxay iska bacdi waxa arki doonaa Trey oo ah macalinka jiimka oo aad u xanaaqsan noloshiisana noqotay mid aad isku buuqsan. Maalintii ku xigtay jiimka ay waxay aasi doonto Leslie oo ah Melissa saaxiibadeeda. Waxayna geli doontaa amar la'aan xafiiska Trey oo ah macalinka jiimka. Leslie waxay baaraysay xafiiska wax far badan. Waxayna rabtay inay soo ogaado wax far badan oo ku saabsan Adam. Laakiin waxay iska bacdi waxa gadaasheeda ka imaanaya Trey wuxuuna qabanayaa Leslie. Sidaas ayuu ku afduubanayaa Leslie Trey. Melissa waxay joogtay xaafadda waxayna ka shaqeynaysay computerka. Melissa waxay ogaanaysaa saacadda uu siiyay Trey inay ahayd saacad oo kula soconayo dhaqdhaqaaqeeda weliba garaaca wadnaheeda iyo caafimaadkeeda. Melissa way iska saaraysaa saacadii isla markii. Melissa waxay aasinaysaa jiimka waxayna raadinaysaa saaxiibadeeda. Waxay soo arki doontaa saaxiibadeeda oo ku xayran ama ku xiran qol. Melissa waxay soo deey doontaa ay soo badbaadi doontaa saaxiibadeeda. Melissa iyadoo ka bixin jiimka waxay isku dayi doontaa xafiiska taleefan yaal inay ka wacdo 911 oo ah booliiska lambarkiisa. Waxa isla markii soo galayo xafiiska Trey. Melissa way ka dhuumanaysaa iyo Lisa. Trey markuu imaado wuxuu arki doonaa booliiskii oo ku jiro qadka. Waxayna dhahayaan oobta wax ka dhacay noo sheeg. Melissa iyo saaxiibadeeda waxay heli doonaan Adam oo ku xiran asigana jiimka qayb ka mid ah. Isla markii waxaas arki doono Trey iyo Melissa. Trey wuxuu u sheegi
arki doonaa jaceylkiisa Melissa laakiin Melissa ayaa waxay dhihi doonto waxaa tahday nin xun ee iga tag waxaana meesha ka dhici doono dagaal aad u fara badan waxaana isdagaali doono kooda hore Melissa iyo Trey waxaana la soo furayaa Adam iyo Trey ayaa mar kale isdagaali doono Trey waxa u maleysaa inuu ku xoog badan yahay Adam wuxuuna ku dhufanayaa feer Adam wuxuu ku dhacayaa dhulka laakiin Trey waxa madaxa lagu dhufanayaa birta jimka Trey meesha ayuu ku suuxi doonaa isla waqtigii waxa imaan doono halkaas booliiska oo laga wacay waxayna xiri doonaan Trey oo ah macalinka jimka waxa arki doonaa wax iska bacdi ah shirkadii oo dib loo hagaajiyay waxaan arki doonaa Melissa iyo Lisa iyo Adam oo ku kulmay shirkadii Melissa waxay arki doontaa fariin oo soo diray Trey wuxuuna ka soo diray xabsiga waxa iska bacdi waxa arki doonaa Trey oo ku jiro xabsiga wuxuuna qorayaa fariimo wuxuuna u qorayaa Melissa ninkan jaceylku wuxuu u maleeyaa jaceylka xoog maahan filimkeena maanta wuxuu ku eg yahay halkaas hadaa jecesha inaan soo gudbino filimada noocan camal ah qisooyinka dhabta ah sida noo dhiirigelisay channelka taa ku cusubta subscribe saar muuqaalkan like saar si uu gaaro dad badan aad iyo aad ayuu u mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh